fiican u afaysan gacantiisa bidixda ayuu saarayaa wuu ku riixayaa kadibna inta ay mididii gacanta dhex gasho ayuu si fiican ugu rugayaa sidaas oo ay tahayna wax dhaawac ah gacanta ma soo gaarayo kadib waxa uu sameynayaa in uu labadii qori inta qabto oo uu kor u riixo oo ay habo been badanay alle fira qortid war mudhac الله وبركاته ويلكن ولكن كذا نسال أصاف شلاد تمر كوري سبسكرايب لايك شير كومنت هذا مسنتاي marka kusoo dhawaad mar kale muuqaal cusub muuqaalkan cusub ku saabsan yahay adiga videogan daawanayo waxa ka aaminsan tahay saacadka waxaan jeclaan lahaa in aad channelka markii ku horeysay na subscribe na wato ilan dheerigelina noo tahay ilan adiga laanta meesha ma joogayno ogtahay marka laagna loo baahan yahay mid kale sanadiyahan qarnigan sanadkan ugu jiro qarnigan ugu jiro waa dareemi kartaa in sarcaadi iyo balaayo imaadeen fahamta marka sarcaadada qaar runni ama spam waaye marka videogan ka bogo sarcaadka run ama been meesha waxaan soo bandhigi doonaa sarcaadka beentiisa iyo runtiisa kulley malahan adiga inaa aaminsantaa laga yaaba in sarcaadka dad qaar laga yaaba inay aaminsaneen sarcaadkan soo waxaynayo dadka inta la keeno soo horkeenayo wax la soo jilaayo been mase run barnaamijka babo sarcaadka ugu horeeyay ama kan ugu koowaad iska dheebaaday kan koowaad sarcaadka koowaad bale la daabo aan isla qiimeyn horto baaste iyo ishaada macalin kuwaay start qoor ama luqun keligeed soo dhacaysa oo macan qoor ama start qoor ama luqun keligeed soo dhacaysa oo macal madaxa inta la qabto dib loo celinayo midi qofka gacantiisa lagu jeexayo hadda ay gacantu weli caafimaad qabto oo aan dhaawac soo gaarin ninka wuxuu yiri luqun qoor caadi soo dhacaysa oo saalaxo been badana tada kale midi gacan la waxeenayo oo lagu gooynayo xaqul ma aha marka barada sister videogan darun oo qaadaday ku talaa ka digto wanaa waxaan been waan fahanti video beentiisana ka daba keenayo video xiga in sarcaadka beentiisa hadda laba maadoon tusini kan qoor soo dhacayso midi gacan lagu gooynayo horta example qoort aan ku hormarayna qoorta calculationka soo dhacayso qaabka waxay samayso beentiisa lagu tusaale fiiriya start aan ku sharaxo sirta ay xeeladani ku tiirsan tahay waa jaakada uu xiran yahay in sarcaadiyuhu sidee bay ugu tiirsan tahay in sarcaadiyuhu waxa uu soo qaatay laba qori oo adag ama caag kadib inta uu isku dhajiyay ayuu qoorta gashtay isaga oo garbaha ka ritay kadibna waxa uu ku dul gashtay jaakada uu ku labisan yahay kadib waxa uu sameynayaa in uu labadii qori inta qabto oo uu kor u riixo oo ay habo been badanay alle fira qortid war mudhac inta das kaftan ana sarcaad karta boqolkiiba 9 bas boqolkiiba iska dheer been waan beentan sarcaadka dadka aaminsan iyaga u taala in sarcaadkina been yahay ku sheegaan kan waa aragnay kan kale gacanta midida ku gooynaya aan aragno fadlan janaalka hadaad daawanaysa videogan been waan fahanti run aan malayn gacantaada ku baraween walaadii ku taalaa walaahi kale la
xariifkan ma sharxi soo gaarin. Indhasar caadiyaha ayaa soo qabsanaya midi af leh oo si fiican u afaysan. Gacantiisa bidixda ayuu saarayaa, wuu ku riixayaa, kadibna inta ay mididii gacanta dhex gasho ayuu si fiican ugu rugayaa. Sidaas oo ay tahayna wax dhaawac ah gacanta ma soo gaarayo. Indhasar caadiyuhuna wax xanuun ah ma dareemayo. Sidee ku dhacday arrintan? aqoon been badan Way sahlan tahay. midee lagu qalaya kabaran gacanta waxna ma gaarin taas ma aaminay adiga fiidogan daawanay ay baba inta dhigaysan ninkan wuxuu sheegi doona ana aragna Abu Saalax midin isku gooya ma jira nin waalan xitaa wallahi bleen isku gooyay wax kala ma haysan sart waxa uu soo qaatay midi indhasar caadka uu u diyaarsaday. Mididu sida ay u samaysan tahay waa mid daabkeeda ku xaroon karta oo ma ahan mid adag oo aan dhaqaaqayn. Yacni qaybta daabka inta lagu riixo ayay qarsoomaysaa. Sidaas oo ay tahayna qayb hoos ku xareysan ayaa qaab goobo u samaysan oo haddii gacanta la dhex geliyo loo malaynayaa in ay gacantii jartay oo ay dhex gashay oo halkaasna uu dhaawac ka dhashay. Laakiin arinku sidaas ma aha. Haddii kaamirada dhanka kale laga eego si fiican ayaa loo arki karaa sida ay mididu u qaabaysan tahay. Farah subhanallah asxaabteedii sharafta intaas ku yahay barnaamijka aynu waday marka in saaqaadka ka heshay fiidiyoasha noocan kale ina soo badiyo leertan ka helo janaalka ta ku cusubtaan subscribe ku qabo ku kilkil adimaas kale fartaantaada dhag aan ku dhahdo halaalkaaga